tartanka koobka bisha Ramadaan ee barakeysan ee ka socda garoonka Olympiga degmada Xudun ee gobolka Sool waxaa kooxaha ka qayb galaya koobkaasi agab isboorti guddoonsiye mayor ku-xigeenka degmada Xudun Cabdinaasir Cabdiqaadir Sheekh Cabdi Guure sidoo kale mayor ku-xigeenka ayaa bogaadiyay sida habsamada loo socdo tartankaasi kooxaha ka qayb galaya kulamada waaweyn ee koobkaasi ayaa u mahadceliyay dowladda hoose. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبت حنو شوقنا قرونكي وكسعودي رمضان كابكو وحانو يمي قلبتها قلقة سعودة دولة هوسي أو قامين يماير كوغينكو أو سيدي در كاللغو عياري سبورتيغا إيو أقب كالي ومقرنا ساك أقب كهاد ينوم مقضاء oo ku caawiyeen dhalinyarada Ramadaan kaabka ciyaaraysa ku mahadsanyihiin dowladda hoose dadaalkooda inta ay ka sii laban laabaan baan rajaynaynaa oo ma garanaysa deebiis leeyahay koobda inta ka waaweyn ayaa laga sugayaa marka insha Allah waxaan aad ugu mahadcelinaynaa hawsha ay qabteen dowladda hoose. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillahir rahiim. maanta oo tahay bisha Ramadaan 12 waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaha mayor ku-xigeenka degmada Xudun oo xawey agab sporti ku wareejiyay dhalinyarta aad iyo aad buu mahadsan yahay insha Allah inta in ka badan boo ka sugaynaa mayrka aad buu mahadsan yahay. Bismillahir rahmanir rahiim. Sida kabtankii ugu horeeyay sheegay maanta waxaan joognaa garoonka Kasooday waxaan la joognaa qolka socota dowladda hoose oo hogaaminaya mayor ku-xigeenka degmada qoladaas oo sidii agab sporti koobka ay ku taageertay waxaan filayaa waa wax nabad bilow inta ay ka badan boo ka jeednaa. Assalaamu calaykum. Bismillahir rahmanir rahiim. Ilaahay mahad iskale waxaan halkan ka salaamayaa dhalinyarada isboortiga halkan fadhida dhammaan intay tiri leeyihiin. Ilaahay baa mahad iskale waxaan ku dhiirigelinaynaa aan kala qayb qaadanaynaa baahiyaha isboortiga sida agabka lagu ciyaarayo oo kale marka uu koob yimaado oo inaan kala qayb qaadano si aan u dhiirigelino dhalinyarada marka inta kaliya ku koobnaanayno insha Allah waxaan rajaynaynaa waxyaalo ka fara badan inaan kala qayb qaadano bulshooyinka reer Xudun waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada la dhiirigeliyo si ay taariifta iyo balwadda ee dhinac uga maraan ee horumarka u soo jeestaan in lagu garab galo isboortiga iyo ciyaaraha iyo wixii ka dhiman agabka lagu dhiirigeliyo waan ka codsanayaa aad buu mahadsan yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan oo ah garoonka Olympiga ee degmada Xudun waxaa ka socda koobka bisha Ramadaan ee barakeysan. halkan waxaa ciyaar ku dhexmartay labada kooxood ee kala ah dowladda hoose iyo F1 waxaana ku soo dhamaatay Bareejo. Waani waa Maxamed Cawil Kawte degmada Xudun ee gobolka Sool.